taariikhda hodanka ka habaabi maaye rugtii ugu horeysay maalin wanaagsan dhammaantiin asxaabta ku xidhan janalkan kusoo dhowaada muuqaal cusub aynu ka diyaarinay wadada 150 wadada ugu weyn magaalada Hargeysa wada noqon doonta wadada ugu quruxda badan leh ee ay leedahay caasimadani muuqaalkan waxaynu ku ogaanaynaa inta ay noqon doonto qaybaha kala duwan waxyaalaha yaala sidoo kale qorshaha dawladda hoose hadda ay u sameysay ee ay ku qurxin doonto waqtiyada dhow wadadan waxay leedahay qaybo kala duwan ay ugu horeeyaan goobaha ganacsiga goobihii loogu talagalay in gaadiidka lagu xareeyo geerashyada sidoo kale goobo kala duwan oo ay ku jiraan garoomo ay ku ciyaaraan dhalinyartu oo iyaguna wadada eegaya haddaba wadadan dawladda hoose waxay ugu talagashay markii ay eegtay balaceega in laga sameeyo laba haad halkii haadna uu ka kooban yahay 3 wado sida aynu arkayno haddaba qorshahan oo in badan laga shaqaynayay waxa uu ka dhigi doonaa wadadan mid aad iyo aad u qurux badan sidoo kalena magaalada Hargeysa wadooyinka dhex mara wadada number 1 iyo number 2 ay kaga nasan doonaan gaadiidku wadadan oo in badan burbursaneyd sidoo kalena dawladihii hoose ee kala dambeeyay mid kastiba waqtigeega ay wax ku dari jirtay hase ahaatee balaca wadadan iyo dhismaha ay u baahan tahay kharashka galaya oo wadadan aad iyo aad u weyn ayaa keenay dib u dhac faraha badan leh ee ku yimid muddooyinka ay soo jireen dawladda hoose haddaba magaaladii Hargeysa aad iyo aad ayay u ballaaratay welibana marka laga hadlayo dhanka iyo waqooyi galbeed wadadani waxay noqon doontaa halbowle sidoo kalena wax ka tara isku socodka gaadiidka fudaydinta alaabaha sidoo kalena kusoo kordhiya ganacsiyo kala duwan marka wadadan si wanaagsan loo sameeyo wadada bartankeyga waxaynu ku arkaynaa gaadiid fara badan oo lagaga tegay haddii yihiin qaar kharaabay iyo qaar baarkin ku jira sidoo kale goobihii banjarlayaasha ayaa inoo muuqda waxay u baahan tahay in wadadan si looga howlgalo marka ugu horeysa dakhligii la diyaariyo dabadeetana injineero u tababaran sidii wadooyinka horeba loo dhisay inagana laga howlgeliyo gaadiidka halkan yaala iyo goobaha ganacsiga kusoo durkayna iyagana meeshooda lagu celiyo dabeetana ay noqoto wadadani wado aad iyo aad u wanaagsan hadday tahay xagga bilicda qaabka loo dhisay tayada dhammaanna waxaynu ka sugi doonaa qorshaha dawladda hoose iyo injineerada loo dhiibi doono si guud ganacsiyada halkan ka hirgeli doona iyo kuwa hadda ka jiraaba waxay baahi weyn u qabaan inay wadadani dhismanto oo aad iyo aad in muddo loogu taameeyay wadadan haddaba waxyaalaha ugu horeeya ee marka la hirgeliyo wadadan aynu arki doono waxaa ka kow ah in wadadan ay yeelan doonto hab ka duwan kana qurux badan qaabkii hore loo sameyn jiray wadooyinka maadaama ay noqon doonto wado leh 3 haad oo dhinac ah amba aynu nidhaahno waa 2 haad oo halkii haad buu ka kooban yahay 3 haad oo dhinac u socon doona wadadani maadaama baaxadda intaa leeg ay leedahay sidoo kalena kharashka ku baxaya aad iyo aad u fara badan yahay sida aynu wada ogsoonnahay waxaa la sheegay in 12 milyan lacagta ku baxaysa dhismaha wadadan ay noqonayso waxaana iska kaashanaya bulshada halkan degan dawladda hoose dawladda dhexe ganacsatada iyo cid kasta oo rabta in horumar laga sameeyo wadadan maadaama 4 degmo wadadan ay dhex marto sidoo kalena ay tahay wado aad iyo aad u dheer wax fara badanna fudaydin doonta marka la sameeyo dhinac kasta oo ay tahay hadday tahay horumarka wadooyinka ganacsiga bulshada iyo xataa shaqo abuur marka wadada dhismaheega la bilaabo insha Allah haddaba waxa aynu halkan idinkula wadaagaynaa intaynu dhex soconay wadadan waxaynu arkaynaa goobaha ganacsi oo aan si wanaagsan u qorsheysnayn waxaynu rabnaa hadiiba la hirgeliyo in la qorsheeyo qaabka goobaha iyo meheradaha wadadan eegaya ay noqonayaan oo tusaale ahaan in laga dhigo
goobaha ganacsiyada qaar isku dheelitiran laga heli karo adeeg kasta. Sidoo kale waxaynu arkaynaa goobaha iibinaya geedka qaadka inay waddada iyaguna eegayaan. Waxa aynu talo ku bixinaynaa in goobahaasna waddada qeybteeda labaad loo raro amba sekada labaad si waxa weeyaan bilicda iyo ganacsiyada muhiimka u ah dalka halka hore laga arko. Ganacsiyada kale ee aan muhiimada badan sameynin amba dadkeena iyo dhaqaalaheena dhaawacayana in sidii loo yareyn karo loo yareeyo, haddii laga saari karana lagaba saaraba. Haddaba halkan waxaa aad iyo aad iyagana ugu soo batay gaadiidka waddada bartankeyga lagaga tegay oo ay sabab u yihiin geerash yarida ka jirta magaalada. Sidoo kalena qof kasta oo geerash dhigta kharash ayaa kaga baxa inuu gaadhiga loo ilaaliyo, balse hadda waxaynu arkaynaa in goobtan waddadan ay noqotay qaab geerash oo kale ah oo qofkii markuu halkan dhigto wuxuu ka cararayaa lacagtii geerashka uu dhiganayay amba loogu ilaalinayay. Sidoo kalena gaadiidkii halkan yaalay waxa ay ku sababayaan in goobtan ay isku beddesho goob aad iyo aad u nadaafad daran. Sidoo kalena hadday tahay waddada iyo gaadiidkaas waxaa ka dareeraya roobka ayaa qaadaya, sidoo kalena geynaya xaafadaha u dhow dhow. Marka bilic ahaan iyo nadaafad ahaan uma wanaagsana gaadiidka lagaga tegay waddada bartankeyga. Waxaan rajeynaynaa in gaadiidkaas cid kasta oo la hina iyaguna ka qaadan doonaan waddada dhismaheegana dhowaan la hirgelin doono. Goobaha aynu ka hadalnay ee iyaguna iibinaya qaadka waxaa qurux badan in iyagana qorshe gaara loo sameeyo si bilicda iyo quruxda iyo ganacsiyada inoo muhiimka ah ay halka hore inoogu maraan. Waxyaalaha muhiimka ah iyadana waxaa ka mid ah in waddadan marka la dhammaystiro goobaha kale amba degmo kasta halka ay kaga xidhmayso in iyadana si wanaagsan loo gaadhsiiyo, maadaama ay tahay waddadan waddada ugu ballaadhan marka ballaca laga hadlayo. Degmooyinka 4 degmo ay dhex maraysana degmo kasta halka ay kaga dhici doonto amba isgoyska ay kaga dhici doonto waxaa iyadana aad iyo aad u qurux badan in laga dhigo goob si wanaagsan iskugu xidha. Haddii ay tahay farsamada iyo qaabka loo sameyn doono iyada waxaynu u deynaynaa injineerada iyo maamulka loo xil saaray inay halkan dhammaystiraan. Hadda waddada aynu arkaynaa waa waddooyinkii hore ee waddada 150 lahayd oo ay burbursan tahay, in yar ayaa kasii hadhay. Waxyaalaha sababayna waxaa ka mid ah inaanay berigii hore si wanaagsan loo dhisin, in goobta biyuhu ay marayeen iyadana aan dhinac looga saarin. Sidoo kale waddadan waxaynu arkaynaa goobaha leyrhka loogu talagalay in iyaguna ay waddada aad iyo aad ay ugu dhow yihiin. Leyrhkaasoo marka ay roobab ku da'aan dhibaato badan ay nagu sameeyaa, hadday tahay inuu leyrhku go'aba maadaama aan xalka hoose marayn. Waxaanu rajeynaynaa haddiiba waddadan la dhammaystiro in leyrhkana xalka hoose la mariyo. Sidoo kale waxaynu arkaynaa in mar kasta oo waddo la sameeyo waxa loo yaqaano dib u eegis dalkeena ay aad iyo aad ugu yar tahay. Muddooyinkii u dambeeyey waxay bilaabantay dadka wacyigooduna uu kordhay. Waxaynu aragnaa waddooyinka faraha badan leh iminka dalkeena laga wado in dib u eegis lagu sameeyo marxaladaha kala duwan ay marayaan. Taasina waa bogaadin oo waxay noo soo kordhay. Waddooyinkeena kalena waxaynu rajeynaa inay saas oo kale noqon doonaan. Muuqaalkan haddii aad daawanayso amba halkan aad soo gaadhay waad ku mahadsan tahay. Wixii talo tusaale ku saabsan qurxinta magaalooyinka, goobaha kala duwan ee dalkeenu u baahan yahay, adeegyada kala duwan, dhismayaasha, waxbarashada iyo wixii talo ah ee aad hayso halka hoose nagula wadaag. Aad iyo aad baad mahadsan tihiin sida wanaagsan ee aad channelkan ugu xidhan tihiin. waa inoo muuqaalkan muuqaalka xiga. sidaa iyo asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. للهي بداديو يبو إبكو قري هبكا مقعدي قريب أبوانيو
hobollo ku ammaaneen hargeysa taariikhda hodanka ka habaabi maaye rugtii ugu horraysay xornimada u heesta